maalmaha waa maqlayseen malaha beri ugu dambeeyey waxa aada iyo aada midiyaa u haystay muqdisho iyo shirar ka socda iyo soomaaliya muddaba waxay maqlinay 6 madaxweyne oo xamar ku shiraaya waxaa ka soo baxay markii ay waxoodii dhammaysteen hal go-aan oo Somaliland ay kaga hadleen runtii ereygaasi ay Somaliland nimankaa waaweyn isu tagay aada wax u garanayeen madaxweynayaasha dowladahaasi wuxuu ahaa erey aan ninkii dhegeystiba uu yaabay Somaliland oo ah Somaliland protectorate lixdankii xuduuda ka qaatay ingiriiska waxay ku yidhaahdeen baarlamaankooda Somaliland waxaa laga soo dooranayaa magaalada xamar caqliga iyo hogaaminta Somaliland iyo cidda mustaqbalkooda mataleysa waxaa laga daaraa muqdisho su-aashaa waxaa weydiinaya kuwii soo jeediyey masaasay tala ka noqotay ma doqoniina ma cadaawad baa arrintaa bahadalaha loo qaado waxaa kaloo la yaab leh dadka Somaliland oo dhan oo ahaa dadkii xorriyadooda qaatay 1960kii oo kowdii iyo laba dowladood noobeen weedhaa ka soo baxday madaxweynayaasha Soomaaliya ee lixda ah maxay tahay eedaas ma cayba ma godoba ma gef loo bareerayba ma weerarba Somaliland iyada shacabkeeda sheegi doona wuxuu ereygaas soo meesha u qabtay xamar baan idinka doonayaa oo ku talinayaa ereygaasi halkaas u yaalaayo waxa uu yahay waa laga jawaabi doonaa haddii alla wixii laba taa waxaan ku oran doonay waxa weeye ereygaasi waa erey maanta ka weyna kafaar iyo dagaal iyo wax walba waa erka cus ma jirtida xamar baan kaaga talinaya halkaa hayta shacabka Soomaaliyeed baa ka jawaabi doona wax qabtana ma wax la qaadanaya ma qodobka kale xalay waxaa ka hadlay TV-yada madaxweynaha ka midka lixda madaxweyne ee villa Soomaaliya xukuma Mr. Tumajo waxaa la weydiiyey ka warran arrintii Soomaaliya iyo Somaliland si kooban wuxuu yidhi gobolkaasi ka gu'i maayo Soomaaliya weligiina heli maayo xorriyaddu doonayo qolada siyaasiyiinta ee Somaliland baa dadka waaraysa oo waxaa ku sheekaysay Afrikiinamo oo qolo oo way kala yaacaysaa 30 sanana waa loo diiday markaa shicibku uu is ogol yahay niman baa waxaa sheegay haddan bayso sentence inteeda kama dhamay qodobka gobol ka mid ah gobolada Soomaaliya dadka Somaliland waxaan weydiinayaa iyo caalamkaba iyo kuwa koonfurtaba bishii July yaa midoobay ma laba dowladood baa midoobay oo Somaliland protectorate iyo qoladii Soomaaliya ee hortaabay jimciyadda gobolka dhaxaysa miyaa midoobay oo loo baarlamaan iyo laba madaxweyne ayaa midoobay mise gobol ka mid ay ahayd Somaliland Soomaaliya Talyaaniga waa erey u baahan in la isweydiiyo ereyga madaxweynaha villa Soomaaliya ugu yiri xageen ka gobol ka mid ah gobol Soomaaliya lixdankii laba dowlad baa midoobay mid waxay ahayd 8 degmo oo Soomaaliya ahayd midna waxay ahayd 6 degmo oo Somaliland ah markii la isku daray awoodda si wala tiraaday dib loo taliyo waa laga ka rabo shantii soo dooranayay 8 degmo ee koonfurtu waxay noqdeen 8 gobol 6 degmo ee Somaliland waxay yiraahdeen laba ka mid laba gobol togdheer oo inta bari saddex gobol gobolada bari la yiraahdo Burco iyo gobolada galbeedka Hargeysa waa qalkii bariga la qaaday waa waxaaba ku dhaalay kuma lixda waxay yiraahdeen laba gobol qaateen adigu waxa tii waa gobol Soomaaliya ka mid ah maanta waxa ay isku qabanay makeekiga farmaajo maanta oo ku hadlay iyo marxaladkiisa isagu ku sheegay isla toddobaad ka hor markii uu xilay shirka madaxweynaha dowladda Soomaaliya ku kulmayay wuxuu yiri waxa ku dadaalay oo wuxuu u sii daayay inaan soo hayo Soomaaliya Soomaaliya horay goolu joogto horay daaw ahayd afrika shaqo soo dhaweynayaa maanta wuxuu waa gobol ka mid ah oo mago
والله سكي قبل وحتى هذا سنة الجديدة فرماجة وحسوة هو عالم كله وحنا ذلك بحال حصول من وجهي سولارنا قال حصول من وجهي ومدحويه فديان كبد كبحيه هذه قرين أفيسة حول العالم حدنا ساعة إنه يعلم مقولي كرتون أو ما نقاريس أو واقبل ومكيك يبقى فلوس أو قرن معي حق وصل هذا الكاس وأنا أفيسة سو ما نروح على إلى هالها إلى ماي ملح يقول يشتي وحبوا على بالنمرة أولى أفريقيا أوروبا كندا ليس أوروبا أفريقيا أحد يقول وحشية سأله كندا أوروبا يقوم بحجة ولا كلا ذلك واوي إلا هو الكلام وأفريقيا كل سنة دولة أفريقيا حدودها كبحرين استعمار وتصومالي أي بشكل على بعض يوم سام أول شيء تبغى سكرينا الدجالة أي أول بقاضي إثيوبيا يكيل عالم كل مسؤول تمسح حدث يكون كذا دولة اللي حتى إنجليز يمكن عشان يكون كذا صومالي لأنه حيكون بتاع حدوده استعمار كذا حالي قرر مايو ما كدل حق أو عارش قبل هاي لو واحد استعمل ولا دول باقي مثل صومالي لون أو حدودي استعمار كذا قلت يا أبو قرمي كل سنة هاي أيام كل سنة إلا وحضرت أحرسية ماشي صوماليا ليلاهو مولكيو نوع ديالي إيجينا الصومال هو ترانا ما هيان إننا دبعتو للعول بقى نوعه قولك تبكسي وحوي وحوي السياسيين أيام باطل كوانسا شيء هو سوري حتى واحد كوشية لمن حمر ما تتريته نحن الحويون سومالي لاند ما يحلو السياسيين تلو إيجو واحد دوران مشيني كمان واحد دوران برنامج كمان مدح سومالي لاند مدحوينه كبيرة إلى دولة وسط عد شعبي أو قف يعلى الوطن هذا الله وصل يعني امتحان أبد قف كاو دولة سومالي لاند وحو كسر قرارتك واحد كو قرار سومالي إلى مقدس هاي oo ay Soomaaliya tahay qaranki xuduudii Ingiriiska taagan oo madax banaan ninkii diilayaan dalooshii qowlaha waa koy codka ay ku hadlaan waa dareenka shacabka oo hadduu dhinac mara halkiisa ayaa shacabka Soomaaliya wuxuu leeyahay awood madax banaani iyo hadalkiisa u madax banaan firigiisa oo waad ka aragtay tifiyada waxa ka socda hadduu rabitaanka shacbiga intaa in laga gara maro kacdoo shacbiga ku dhacayo ma dhaafi karaan waxaan qarrimahay dalka Soomaaliya waxaan soo weydiiyay xamreega taliya doorta yaa doorta madaxweynaha saddex boqol qof yaa soo xor yaa ka dambeeya waxba ka hadlaa markaa ninka cid soo doortay la garanay cidii ka dambeysay iyo madda ku socday aan la aqoon inuu maanta ku eedeeyo ninka shacbigu u doortay ee hal waajibo koowa loo dhigay qarnimada huli inuu yidhaahdo shacbigu waxaasay doonayaan waa meel ka dhac kale iyo ceeb la barbaray shacbiga Soomaaliland oo aan laga xishoonin oo maaluba tahay qodobka kale suudiina waxa weeye horta bila Soomaaliya iyo Soomaaliland la wada ictiraafay oo qool laga midaatay waxa jira garaasha qaar loo jiray nafti hafar oo soo horjeeda halkeen baa qaado waxba soo ciid farmaadi nafti hafar baa lahaa hurdu jiifay baa taasoo laga tahay qolada ma taxamar dhixda ku socday waxa lagu waday nafti hafar way soo yoogna xamar yaa ka tahay yaa maanta Soomaaliya u tariya mama madaxweynaha kuna Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi baa u tariya ma shanta madaxweyne ee gobolada u tariya go'aankooda ma beesha caalamka u tarisa ma kooxa kala u tariya bal waxay isweydiinayaan go'aanka Soomaaliya yaa haya maanta ka Soomaaliya wala yaqaanay anigu gudoomiye iyo fuliya haddaan garab marna baarlamaanka ay soo fiixdo wala iga qaaday wadada maray wala wada gooy qofkii gafana saasa loo qabtaa bal iyaga yaa xukuuma go'aankooda yaa gaaray way shirayeen shirka yaa waday ma bulshada caalamka waday
ما يلقى ولي ما يلقى دوان كلام إن هذا شو ولا شيء وحنقول كوريا قبل كأن الناس صومال شنتي صومالها بسرعة صومال وحوله قبضته هذه إله اللي جاي يعلو يستفيد ما كي هون صومال لا باكينتين وايد مرخاتية ذي أخير بوق قريبة قريب أما سقيبة بوق يسقي أخير وها وهيه كلها برلمان كان مالتها الحربي إلا يتلو بريسين مدحوه المدوري مالتي حربي بكيلا قاطي halka waxa yimid habeenkii la saarayay lixayaadka joog aana cadeeyay intagobi waxay ku dhaawaan shaysanay dib loo yaqaan oo waxa inuu ku sii weerkaadi gurigaas hawsha ku sabwa mid sibahay qayb waxa ay tahay soo qoro soo saar waa mas'uul soo shantii Soomaaliyeed maanta ay ku wada bixiyay dadkuna waa qiyaasan yahay meel uu joojin lahayd way tiri Soomaaliya maalintii hore soo markay raasay qaatay maalabaadii shir baa lagu qabtay guriga gooyay maxkamad sare waxa lagu heshiiyay in la dedejiyo midnimada maadaama shantii Soomaaliyeed intooda iyo isticmaalka gaadhay Afrikana waxa garaacaysa dabaysha ee maaragtay xorriyada waxa leeyahay calanka iyo astaanka iyo hees taani uu toosanahay aan ku biiro waxa yeelay ka isfaarbaan ila shantii uu yahay intii waxa soo buugahay marxaba wala basri lix qodob oo aad ay ku weeraraan marka qaadada la tagayo iloogi ayaa isma maalin labaadii tuuray tagi waxa soo celiyay war ablaadiis oo markaa bartilmaameedka wuxuu yiri la qodobadii labaan la qaaday kari qodobada keentay midnimada ku yoolaya laba qodob baa baahan in la bedelo marka waxaan doonaynaa in midnimada dib u yeelo waqti soo dhigta xamala ay ku hadallo أجل ما لوكل برلمانك أو بدون هاي أحراري غير الحكومة واحد تطلع إن كان هذا الدول والحياة الشرعية وهذي أيضا هو مانتا واحد كتير هذا سواء مانتا بيان بكتير وعلى بالو لسه ده كمان مقال واحد يقول أنا أقول قدر يقول هذا مكان بالنور بينه خط أمراض إلى المدورة سينما لوتي دمنا الله صوت على من هذا بوليس فيديو صوت بس أنا سأسأل وشو halka maanta dadka Soomaaliya inay Soomaaliyeed ay wax wada qabsato oo isu baad ciise cilmiga laakiin waxa weeye war waxa gaaray Soomaaliland iyo aqliga xamar iyo shanta Soomaaliyeed soo imanayaan bay kala dad kala hayeen ma joogaan kuwa ay isu iman kari waayeen ee garow shaqada ay helayaan saadada waxa Soomaaliland markay aragtay rajada xamar taawaa iyo tagantaaysa shan dawladood war iyagoo dawlad quraan cad waxay ما أنت شفت تيبل لا بيقولنا شفت ولا هذا بيقول سؤال بيقول لسه تيبل دول يا سؤال لا بيقول شفت بدأ ولا شفت ولا شفت هاي حتى أقول بياد مجنون في النص وبعدين كوبا وكاهاي هذا النص وبعدين هذا يسوي ولا يجي يسوي شو ويسوي دي كذا ده ولا يسوي يقول يسوي فرق يقول يسوي ولا سكاشة بقى واحد من ذلك مجنون مش باكله عندي ayaa gala u soo tiriyay inuu si qorad caalawada yahay waxba soo hado wasdo waa geeyay waxba geeyay baa waa nimadiya waa inuu soo galay walaha laga yaabay inuu tolbay haysan oo soo تصبحان وكاتب تعبيسي توراة إنجيل يفرقان ثم هيسان هاتلمامي آخره وحتعتبر يعني فرماتو وحلاي هاتلمامي بقوة عليه كامل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.